لما دورا كره دواق مغلوك عاي ومقرى ديديو كعاي وحيدي لمو كعاي ضميركم انتانو ديما دوكينا دفاع عني دلي يروي كعاي waa sanad ka duwan sanadkii loogu duceyn jiray dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgooska 14 Oktoobar oo sanad walba bishan 14keeda lagu xusi jiray isgooskan balse sanadkan waa uu ka duwan yahay oo ma jirin wax isku soo baxyo ah oo loogu duceynayo oo lagu dhigay isgooskan waxaa jira dad badan oo saaka u soo baxay inay ka qayb galaan kulanka duceynta oo lagu qaban jiray isgooskan 14 Oktoobar balse marka ay yimaadeen arkeen inaysan jirin wax isku soo baxyo ah oo loogu xusayo dadkii ku geeriyooday isgooskan waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Muqdisho oo ka hadlaya xusuusta oo ku reebtay isgooskan iyo isku soo bax la'aanta goobtan loogu duceyn jiray dadkii ku geeriyooday qaraxii 14 Oktoobar ee ka dhacay isgooskan maanta waxay tahay dareen gooni ah waa maalintii aan weynay tiro ka badan 600 oo qof ay dhaawacmeen wax ka badan 400 oo qof waa maalin uur ku taala nagu ah oo ummad badan oo eheladana aan ku weynay aniga qof ahaan waxa aan ku waayay laba qof oo aan saaxiib ahayn oo wali bidantooda arkin marka waxay ii tahay maalin xusuus gaar ah marka waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed intii dhimatay Allah u naxariisto wixii ehelay ka baxeena Ilaahay samriiman ha ka siiyo qof ahaan waan dhibsaday waxaan u soo lugayay maanta inaan maartay duca jirto aan halkan ka duceeyo buu qorshahayga ahaa balintana loo muujiyo yar yar ka ama aan dadkii aanan ka warhayn wixii meesha ka dhacay la xusuusiyo laakiin ma ayna dhicin taa waxaan u maleynayaa jawaabteeda waxa yeelanaya mas'uuliyadda dadka haya markii la gaaro 14 Oktoobar xasuus badan ayaa naga dhalinay ilaa dad aan naqinay ee rag saxaabtayna ahay dad waalidan u ahaan ayay ku baxeen oo wala hataa hawada galeen maartay aan la arkin xaqiiqada markaan ka hadlo asi ahaatee wax walba qadar rabbi waa dhacday dawladana juhud badan gelisayeen wax badan baa kabtay waa ka mahadsan yihiin meeshaan maalin walba marka maraa xasuus badan ayay ugu reebtaa mar walba waxay ku soo dhaco gabdho iyo dad badan oo asxaab oo aqoonay oo maalinka soo baxay oo meeshaan burburka iyo dhibaatada qabsatay dhinacooda ka galay saakir waxa uu soo baxay sidaa saakir meesha waxa uu tagi doontaa banaan baxyo iyo tiraanyo ummad iyo tiraanyo si dawladda iyo madaxda ka qaadanaysa iyo ayadoo xiran saddexdii sano hore ku naqaanay laakiin maanta saakir waxa ku soo waabiristay jawiga ka bedelan wadooyinkii furan arradii sida iska aan maanta ay muuqan baa inay jidho 14 Oktoobar ama ummad Soomaaliyeed oo qayb ugu fadhiday inay baxdo aan la tabsanayn baa ay soo baxday laakiin waxaan ka codsan lahaa shacabiyada Soomaaliyeed horta intii dhibaatay waxa la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhaawactay waxa la Allah u booray waxa u maleynaa Soomaali garaabaa jidha maantay oo dhibkii meesha ka soo gaaray wali aan la diyaar dhacays marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa dhibkan gaaray waa dhib ummadda Soomaaliyeed meel ka koraysa laga keenay in aan laga harin oo la tiiraayado oo maalin kasta ay sanadka ku soo aado in aan dawlad looga harin maalin ummadda soo baxdo banaan bax ay sameeyaan ay soo baxaan ay shucuubtooda soo bandhigaan oo ummadda soo bandhigaan marka waxaan rabaa Soomaalida maanta inaan la qaybsado murugadii ka soo wareegtay 14 Oktoobar aad iyo aad waa maalin aad iyo aad dareenka shacabka Soomaaliyeed qalbi jab ku ah runtii dadka qaar marka inta marayaan waxay dhahan wadadan soo baayaa la oran jiray waagi hore isgooska soo baa laakiin hadda waxay ku magac tahay waxay ku caan baxday 14 Oktoobar inkastoo Soomaalida aad moodo maanta inay ka seexatay xusitaanka iyo ducooyinkii iyo buraarujintii dadka Soomaaliyeed in dadkii dhinta Allah u naxariisto in la dhaw maanta oo kale la soo qaato micnaheedu ducada way anfacaysaa qof walba muslim ah oo geeriyooday Cabdullaahi Maxamed Sheekhdon warbaahinta SBC Muqdisho dadkeenu ma doohan yahay miyaan daayaheenu arag dhagarta laynagu waaniyo cadowga dhexdeenan degay siday u dhammaynayaan dhallankii hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeenna u daadiyan siday u dhammaynayaan
dhalankii hooyadood dhakhaatiiriyo waxgarad dhigeena u daadiyan way waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhiilahow kacay damiirku intaanu dhiman dukeenna difaacane dhaliyaroy kacay waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhiilahow kacay damiirku intaanu dhiman dukeenna difaacane dhaliyaroy kacay dhibaatooyinkaan marniyo wixii dhagka faarisigay taariikhda inoogu dhigaa xusuustuuna yaanay dhumin way waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhiilahow kacay damiirku intaanu dhiman dukeenna difaacane dhaliyaroy kacay waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqlow kacay maqura dhiidhiyo kacay wixii dhiilahow kacay damiirku intaanu dhiman dukeenna difaacane dhaliyaroy kacay